wararka naga soo gaaraya magaalada balaweyne gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in barqanimadii maanta dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyad uu horboodayo General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka dhacay duleedka magaalada balaweyne gobolka Hiiraan. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ciidamada militariga kuwa nisa iyo kuwa booliska isku dhinac ay weerar ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyad uu horboodayay Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo sheegay dhawaan inuusan magaalada balaweyne gobolka Hiiraan uusan soo dhigan karin madaxweynaha dhawaan la doortay Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen. Ciidamadan ayaa sheegay in amar ay ku haystaan inay gacanta ay ku soo dhigaan Abuukar Xaaji Warsame Xuud haddii uu ka dhaga adeegan ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah, balse arrintaasi ayaa waxaa si weyn ugu carooday shacabka ku nool magaalada balaweyne gobolka Hiiraan. Barqanimadii maanta ayaa magaalada balaweyne ee gobolka Hiiraan waxaa isqabsaday dibadbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeeda duulaanka ciidamada dawladda ay ku qaadeen maleeshiyadka uu hogaaminayay Abuukar Xaaji Warsame Xuud, waxaana magaalada balaweyne ee gobolka Hiiraan lagu gubay taayiro. Sidoo kale dhagxaan ayaa lagu jaray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada balaweyne, waxaana weli cilka isku sii shareeraya khilaafka ka dhashay weerarkii saaka ciidamada dawladda ay kula saladeen goobaha uu ku sugan yahay sargaalkan oo hore u diiday in uu aqoonsado maamulka dhawaan loo dhisay Hirshabelle oo uu hogaaminayo Cali Guudlaaw Xuseen. Xilli muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka ku nool magaalada balaweyne ee gobolka Hiiraan ay la daaladhacayeen fatahaada webiga Shabeelle ayaa tan waxay ku soo aadaysaa xilli aysan shacabka qaadi karin dagaal ka dhaca magaalada balaweyne ee gobolka Hiiraan, balse shacabka saaka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxay ku eedeeyeen dawladda federaalka Soomaaliya inay dhibaatadaasi iyada mas'uul ay ka tahay isla markaana ay la dagaalami doonaan. Shacabka ayaa warcad ku sheegay inay taabacsan yihiin Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo sheegay in magaalada balaweyne uusan soo dhigin karin madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen. Sargaalkan ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay deegaanka Ceelgaal ee waqooyiga gobolka Hiiraan, qiyaastii 15 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga aadan magaalada balaweyne ee gobolka Hiiraan.